wasiir iyo madaxda waxaan la socodsiinaynaa guddiga u qareemidda cusbitaalka Baargaal waxay go'aansadeen inay dhisaan cusbitaal dhammaystiran oo ka baaxad weyn labada qaybood ee wajiga koowaad hadda xarigeenu ka jarayno markay qiimeeyeen baahida iyo degmada iyo gobol ahaan say gaari u tahay iyagoo bulshada ka turjumaya waxay go'aansadeen inay dhisaan naf iyo maalna la garab istaagaan go'aan bulsho cusbitaal dhammaystiran labadan qaybood oo hadda dhammaaday waxaa hadda noogu xigi doontaa oo caawa xafladda kadib amaan caawa xafladda dhexdeeda ka sheegaya in guddigu go'aansaday inuu balaabo 4 qaybood oo dhismaha cusbitaalka ka mid ah afarta qaybood ee haddeer la balaabi doono oo waxyaalihii markii la sababeynaya waxa ka mid ahaa masaafada maanta waftigaana soo socday marka la qiimeeyey inaan cusbitaal dambe loo aadin Hargeysa iyo Muqdisho iyo Garowe toonna cusbitaalkaas insha Allah waa dhismaya muxsiniin baa ka qayb qaadatay reer Baargaal reer Gardafu reer Puntland iyo Soomaali dal iyo dibad sida hadda laga xusay waa ka wada qayb qaateen qof kasta sida sheekhu sheegay farxad bay u tahay ka qayb qaatay shilin talo iyo tusaale iyo xoog iyo maalba ku bixiyay meeshan oo dhismayaal kale ay ku walaayeen oo dhagxaan badan oo leyd baa la dhagax dhigay dadkii maalka bixiyay iyo kuwii talada lahaa macaawi waxa farxadda weyn tahay inay arkaan wixii ay maal gashadeen oo sidaan qurux badan oo caawi hadii sawirada la qaado madaxtooye ka mid ah madaxtooyinka Soomaaliya bay hoolkan caawiga guddigu waa sii wadi doonaa waa u qareemi doonaa reer Baargaal baana budrigu ah go'aankaas inaynu 4 qaybood oo dhan haray aynu dhisno guddigu idinku metelaya dhaqaaluhuna waa inaga taladu waa inaga xooguna waa inaga sida isugu dhawaayeen 17 November 2021 waxa la dhameeyay qaybta qalliinka oo dabcan waa qaybtan 15 Janaayo 2022 waxa la dhameeyay 2022 waxa la dhameeyay qaybta labaad 22 Maarajna waxa la dhameeyay deyrka la soo afmeeray sida ay maartay odayaasha Xuseen qaybaha hadda dhiman oo aan caaway u qareemistooda ay socotoba oo Boosaaso iyo guddiga gacanta ku hayaan qaybta emergency-ga ama qaybta gargaarka degdega qaybta caruurta qaybta shaybaarka iyo qaybta daawada intaas aan loo soo gudbiyay bahda caafimaadka noo soo gudbisay guddiguna waa ka howlgalaya dadkii waxaan rabaa halkaasi guud inaan uga mahadceliyo cid kasta oo talo iyo dhaqaale iyo maalba ku bixisay waxaanu hadda codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka guddiga in qaybaha dhiman hawlka madaala wali waa hawada lagu soo qoray in gacan la ku siiyo oo guddigaas hawlkarka oo aaminka oo in wada naqaan oo degmada Baargaal kuwa jooga iyo kuwa Boosaaso fadhiyaba dadka labeentii dadka in dadka aynu gacan siino baraha bulshada gacan ku siino dhaqaalaha gacan ku siino xooga gacan ku siino intaas waxa weeye waa codsanaynaa wasaaradda waxaanu ka codsanay 3 qaybood isuduwa halkan uu joogay inay qaabkii cusbitaalka uu ku shaqeyn lahaa la timaado cidii ka shaqeyn lahayd iyo wixii lagu shaqeyn lahaa dabcan wasiirkii baan maanta meesha jooga waxa muuqda isku tashi fiican oo wanaagsan Baargaal degmadan weyn oo baaxadda badan laba qaybood waxay mudayeen in la maartay la bogaadiyo gacanna la siiyo waana labada gulub ee magaalada hadda ka shidan qaybta caafimaadka oo dadkaas muxsiniinta dhiiri gelisay markay shaqadooda arkeen wasaaradda caafimaadka mas'uuliyiinta u joogta gaar ahaan guddigu wuxuu xusay Dr. Jibriil iyo Dr. Istanbul iyo dhammaan hawlwadeennada si gaar ah ma rabnaa inaan ugu mahad celino laantooda waxba noo qabsoomeen
qaybta baargaal ay ku faanto kaleeto oo la rabo in iyadana gacan la siiyo waa qaybta waxbarashada oo baargaal meelaha waxbarashada ku horeeya ay ka mid tahay una baahan maaragtay in la dhiirigeliyo qaybaha kalena sida hadda maaragtay waxa la rabaa in loo kaco oo iyadana maaragtay qaabka loo sameeyo hadday tahay jid iyo hadday tahay ceel iyo hadday tahay maaragtay shaqo kaleba in maaragtay qaabka isku tashiga shaqada lagu wado